Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtay sharafta leh igu xiran sida ay tihiin way fiicantihiin xaaladiina ka warama anigu idin wanaagsanahay kusoo dhawaada video cusub galabnimad bay noo tahay waa salaadii casar kadib waan soo lalabistay gaariyaan soo kaxaysanay jawigu aad iyo aad buu u macaan yahay roob baa nahayo neecawdii roobkaan nahayso ma fahanteen iyo dee anigoo hargeysa caday iyo dhulkayga hooyo jooga marka waxa waaye jawigu maanta amazing waaye waa jawi aan inaba caadi ahayn waxaan kusii soconaa mid ka mid ah hoteelada ugu shidan magaalada Hargeysa oo la yiri waa hotel cajiib ah ani maanta iigu horeysa ma fahantiin oo aan tegaya aan soo arkaya waa kana saa usoo soconay hoteelkii aan soo gaarnay waxaa la yidhaahdaa hoteelka Dholayara 2 wuxuu ku yaalaa Jigjiga yar marka waxa waaye roob baa meesha ka da'aya saa u jeedaan cirka daruurtiisii cadceeddii oo yara qarsoontay jawigu waxa waaye dhaxan daran ma jirto laakiin naacaw yar baa dhacayso maanta waxa waaye jawigu wow weeyaan ma fahanteen waa kana hoteelkii gudaha usoo galnay hoteelka barxadiisa saanay u eeg tahay si aan inaba caadi ahayn aa hoteelkan loo sharaxay anigaba tiktok aan ka arkay daas waayaan u yimaaday waa kana hoteelka meeshii aan ku dhex luglugeynayay ahayd sidan baa hoteelka loo hagaajiyay oo loo habeeyey yaa dhir cayn bacayn ah sida loo decorate gareeyay oo dhir nool nool oo dee dhir saxa loogu decorate gareeyo aan caag ahayn baa aad iyo aad ii soo jiidatay leerarka yaryar sida loogu habeeyey meeshii waxa waaye ground floor ku taalo roob noo da'ayo tiixtiixaya neecaw yaroo qabow oo meesha ka dhacaysa meeshii oo dhirtii ay cagaar tahay iyo akhtar oo indhaha ku doogsanaysiin maanta jawigan ku jiro yaa mid laga sheekeyn karo oo hadda isdhaho kelmadaha adduunka yaa lagu qeex wallahi ma ku qeexi kari yaa qalbiyan aan ka faraxsanahay anigoo hargeysa caddee jooga yaa wallahi ma qeexi kari marka waa kaasaa cirka daysa u eegyahay maasha allah jawigii halkana waxaan ku raacday aan ku faraxsanahay maskaxdiya ii soo degtay hargeysa ma lahan yacni dhulka la marayo like wadooyinkii meelahaas la marayo ma lahan dhirar badan yacni cagaar badan oo sidana mar walba ma arkaysid inaad amba magaalada banaankeeda u baxdid ma ahane marka waxa waaye cagaarkii iyo roobkii iyo jawigii iyo wixii waxaan ku raacday maskaxdeeda dhan farxad kaliya iyo meeshii iyo dhulkayga hooyo ahayd ma fahanteen waa kana casar bay ahayd waxaan dalbaday ahayd in yaro snacks oo aan cashada ku sugno snackskan dalbaday waa hal xabado donut ah quraac amba donut iyo koob sharaabaan dalbaday ma fahanteen si aan cashada ugu sugo waxa waaye meesha jawigeedana dee waan ku raaxaysanaa neecawda yareeda roobkaana hayso neecaw yaroo qabow weeyaan laakiin oo qabow dareemeynin laakiin oh my god wallahi billahi is amazing meeshan amazing waaye way kana halkana waxaan ku raaday sharaabkaygii yaraa snackkaygii aan ku cunayaa meeshan horta sida loo decorate gareeyay iyo viewgeedu waxa waaye boqolkiiba boqol amazing waxa waaye service-kooda inaba caadi ma ahan juicekoodana inaba caadi ma ahan laakiin cuntadooda wax oo xasuus badan kugu reebisa ma ahan laakiin inta kale oo dhan xasuus kugu reebisa cuntadu yacni it's like cuntooyinka kale oo hoteelada kale waaweyn ee amazing ay bixiyaan oo kale waaye laakiin the way ay meesha u decorate gareeyeen sida service-ka lagugu qabanayo qalbigayga degtay iyo juice-kooda inaba caadi ahayn ma fahanteen maqrib baa la gaaray qolkan baan lagu yirahday kusoo tukada salaada kiyaan soo galay saan u eegaya qolkana lagu yiri salaada kusoo tukada waa hool baa asxaab loogu talagalay malaa in shirarkii waxaas lagu qabto dadka kuraasi ku tukanayaan aniga bay kana waxaan meesha ka helay cawdan yar cawdiyaan kusoo tukaday maqribkii markii soo tukaday dhulkii madoobaaday waa kana viewgooda marka uu maqrib kadibna saan u eegyahay yaa leerarkii waxyaabihii kale oo dhan baa la wada shiday meesha dhan baa isla hilaacaysa ma fahanteen yaa meeshaasay niyadda kugu soo degaysa ma malaynaysid because meel qaylo badan kuma taalo yacni qurux neecaw meel yaroo barxad ah yaa inaba caadi ma aha haddii gurigayga u dhowaan lahayd maalin kasta waa imaan lahaa hadda cashadii aan iska dalbanayna ay ahayd marka menu-gii ayaa naloo keenay si aan cashada u dalbano
Soo horta hadda halkan videoga isla soo gaarnay, fadlan videoga like ii saara, asxaabtiina ila sii share gareeya si asxaab sidiinoo kale u qurux badan ay iigu soo xidhmaan insha Allah. Sida ii support gareysaan oo ii daawataana waa ku mahadsantihiin. Yaa asxaabtiina laakiin ila sii share gareeya insha Allah si asxaab badan aan u helo sidiinoo kale u fiican. Soo cuntadii aan order gareystay, cuntadeedii aan sugayay bay ahayd halkan aan iskaga raaxaysanayay. Thank you. Soo way kana waxa waaye cuntadii aan dalbanaana loo keenay ahayd. Waxaan dalbaday ani pizzadaas oo chicken pizza ah, french fries, amba chips la shiilay iyo koobkaas cabitaanka avocado wax la isku ridqay ah. Marka halkan aan dee cuntadeedii yareed aan iskaga enjoy gareyn doonaa. Waxa waaye view-ga meeshan iskaga sii raaxaysanayaa. Waxa waaye the reason oo ani aan usoo duubayo hoteelayaasha ugu shidan Hargeysa waxa waaye aniga inta Hargeysa imaanin meelahaasaan gelgelin jiray hoteelada si aan u ogaado hoteelkii u shidan hoteelkii markaan Hargeysa tago aan tegi doonaa yacni so many things baan baari jiray. So waxaan ogahay dad doonaya inay Hargeysa yimaadaan inay jiraan oo ayagana hadda laga yaabo inay baarbaarayaan talo hoteelada ugu shidan Hargeysa markaad Hargeysa tagtid aad tegi doontaa. That's why ani maalin walba qayb aan idinku soo gelinaa hoteelkan tago oo quruxda badan oo i cajibiyo oo servicekiisa wixiisu wanaagsan yihiin ma idinkala bakhaylay waa idin soo gelinaa si idinkana idea uga heshiin. So waxa waaye haddaad jeceshihiin waxyaabo kaloo Hargeysa ku saabsan inaan idin soo duubana way ii sheegi kartaan insha Allah. So cuntadii yareed baa meesha ku tijaabinayay cuntadeeda it's like 9 out of 10 ma fahantiin 10 ma ahan ani ahaan horta cuntadan dalbaday laakiin it's amazing. So kana halkan aan marna jibsigii cunayaa marna waxa waaye biisadeedii aan isku daldalayaa ma fahantiin. Qasab baa la igaga qaatay. Soo markaan soo cashaynay kadib waa cashadii soo dhammaysanay meesha waan iskaga soo tegay ma fahantiin 7 saacadood aan maanta meesha aan iskaga soo lumiyay oo aan dhex taagnaa view-geeda iyo jawigeeda iyo quruxdeeda darteedana uga soo tegi kari waayay. Meeshana meel buuqa mayna ahayn oo dad too much mayna joogin. Markii oo haddaan kasoo bixinay dad badan imanayeen. So meeshaas yacni happy iskaga soo dareens happy aan ku ahaa camal. So ay kana videoga maanta deyntan uu ku eeg yahay meesha albaabkeeda laga soo baxay laga soo geliyay saana loo qurxiyo decorate gareysan yahay. In the next video ka kulmayna insha Allah waxaan idin leeyahay mac salaama bye bye see you soon.